النبي يقول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قبورها بوقضة وزيارة آخرة أي إذن حسوسية. قفكم مركو قبورها تقو أو أرك هبل أو يقان هل كاين دقاي مالكيسية داريسي لو كصوب بحي نينكي الدنيا أو لي يقان صاحبك الله أهانا أو يهي wuxuu is aruurinayaa qofku adduunyadii iyo macaankeedii iyo isku baahinteedii buu iska aruurinaya bal hadduu booqdo dadka waxa weeyaan yaala isbitaalada oo dhaawacyada iyo dadka naafada ah markuu booqdo qofku arko waxa weeyaan oo uu arka dhibaatada midkaan haysata dhibaato kale nooc kale ah midkaan haysata burburka iyo rafaadka dadka markuu booqdo uu arko waxa weeyaan waxa uu haystaana waa deeqayaan caafimaad inuu haystana wuu ogaanaya qofka isaga hadduu booqdo waxa weeyaan isbitaalada dadka yaala oo kala duwan wax weyn ayaa qofka noloshiisa arrinkaasi uu ka bedelay wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira haddaad ogaan lahaydeen waxa aan ogahay in yar baad qosli lahaydeen wax badanna waa booyi lahaydeen wama taladadtum bin nisa'i 'ala al-furushat haweenkana firaashada kulamayna seexateen wala kharajtum ila su'udat banaanka ayaad u soo bixi lahaydeen taj'aruna ila Allah idinko ilaahay u calahaya cadaabka inuu idinka badbaadiyo oo cadaabul qabri iyo aakhirada idinka badbaadiyo dhibaatada taala ayaad banaanka u soo bixi lahaydeen haweenkana lama seexateen waxana weeyaan in yar ayaad qosli lahaydeen wax badanna waa booyin asbaabta ghaflada waxa kamida waxa weeyaan qofka oo ka go'ah ذكرك إلهي هي مجالس تلقوها يكتبها مالها علمك لقوها ووعدك لقوها قفك أو كم قناضو كف جاده أسبابها غفلة أي كمتها وعليها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله أنت أدونك وكم قنيها حسك إلهي هي ذكرك إلهي أي إلهي كفك سبحانه وتعالى وعكلوا لي إن مجالس الذكر مجالس الملائكة قوبها إلهي اللي حصيه وعلمك يا خير كاللغوها ومجالس ملائكته ومجالس اللهو والغفلة مجالس الشياطين ما لها اللهو يا غفلة اللغوها ومجالس الشياطين فليختر العبد أعجبه ما إليه أدونكو هكذا دورتو اللي بدو ده مدة ويا بدن أكتيس أفعان هدورتا أسوي مرة كذلك وحا كمذا مساجد يا جماعاتك ولا قد يراضو قفك أو وحا ويان جماعاتك مساجد اللي قوي هذه قفك عادة الصلاة إنه قريها كنت كده أما السوق وكنت كده وجماعات مروا البوكهرة تاسنا وحا ويان من أسباب الغفلة أسبابها غفلة هي الدهنان تكينتا يا كمتا وإن قلبك مساجدك كحرتا مجالس علمك كحرتا خيركم مالها ويالا كحرتا وإن وقتك قيبسا وأيسن الدنيا كلتك إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سرينا هداية يا إنه نقدر يا أسبابها غفلة